baa loo soo qaaday biyo xabar baa looga meeray taqaatiirtii magaxba ka qabay lugtu waa iska soo naqsatay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Soo dhawaada akhyaaray, Allah idin shaaf. Waxaan halkan u joogaa caawa inaan idinla wadaago arrin yar oo khayr oo in tabarucaad u samaynayno qof istaahila in tabarucaad loo sameeyo intaan u guda gelin faahfaahinta ka badan muuqaalkan nala daawada. xanuunka lugta markii hore waxa biyo baa loo soo qaaday biyo xabar baa looga meeray taqaatiirtii magaxba ka qabay lugtu waa iska soo naqsatay. meelo badan baa lagu wareejiyo marka hataa niman miigaas nima jiro mataqaana oo sacnoola waa lagu sacna Soomaali ah wixii adana muddo baan ku soo maqnaa haddii adana Muqdisho aan ku soo laabtay maga lugteen dantii ay masaawiix maga iska fidhi intaas maga qarasharo iyo mataqaana dayaro maga ay haysata aweed magaratay marka lugtaan markaan talaba ay gaartay ama qalliin ama mataqaana gooshmo sidii maga ku soo baxdo maga qarash looga helo maga intaas waan qarash darro inta ay soo jiideysay magaratay xanuunka markii hore infection horta waxba ka bilowday marka infection oo ahaa marka biyo iyo waxba galay adii infection baa ka bilowday wax daawooyinkii aan qaatanay hadda wax maga taqaatiirta qaarkeed hadda inuu xiriir maga waa qalliin badan oo baahan tahay email badan oo soo martay magaratay. Muuqaalkan daawateen waa aabba Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya. hore waxa aabba reer Boosaaso xamaalan jiray shan caruur iyo hooyadeed xamaalan jiray. xamsaan daawanayeen maqlayseen xanuun baa la soo wajahay ilaahay ka caafimaad marka hore. magaalada Muqdisho hadda ku xanuunsan yahay ku dhiban yahay xanuun ayaa lugta ka soo wajahay. waxaan rabnaa in wax isugu dardarno haddaan Soomaali nahay. qof walba wuxuu heli karo kii $10 heli kara kii $5 heli kara kii $100 heli kara kii 0.5 ama 0.1 baa lacag ugu yar sentiyada lacagaha la diro golis heli kara inuu lambarka halkan ku qoran oo sahalka ah iyo lambarka hormuudka ugu diro. haddaysan akoonka wax ugu jirna daawada waxaan soo xushmad leh kaaga codsanaynaa inaad muuqaalka sii share garayso oo asxaabtaada la wadaagto. waa kan aabbahan isagoo wareysi siinaya raadiyo Daljir oo xaaladiisa caafimaad kaga warramayay ummadda Soomaaliyeedna cid walba oo awooda inay wax soo beddelaan codsaday inay wax soo diraan nala daawada. daawada waxaan rajaynayaa inaad aabbahan warkiisa ka dhigtay oo dhuuxday oo aad wax soo diri doonto. intaan caawa halkan u fadhiyo waan kaamilada usoo horfaday waa inaan baxno qaadno Soomaali hadayna wax isku dardarno aabbaha waxa la sheegay lacagta la rabo oo rabo in lagu qalo dhowr kun ma 5 kun ma 3 kun ma 10 kun ma 20 kun ma waa lacag yar waa $500 baa la yiri baa xanuunkan dadka intii laga qalo lagu daweyn kara. hadda aabbaha $500 ma weyn aabbahan $500 ma weyn Soomaaliya waa maya aynu soo kacno aabbahan da'da 72 sano jira. ilaahay ha barakeeyo cumrigiisa. aan soo caawin anigu fariintii Soomaaliyey waa inay soo gudbi ka jawaabitaanka iyo booqashada waa idinka. khadkan ku arkay raadiyo Daljir baa soo wareystay boggoodan ku arkay waxaan isoo caaw intaan heeradaha iska fadhin lahayd sheeko iyo ku jiri lahayd oo khadka ku jiri lahayd raabahan maal fariinta u doonti waa salaam ayaa muuqaalkan dib soo gaaro like